suugaantu ma aha erayo la isku nabay oo la miisaamay misena loo ilaaliyo xaraf raaciye mana aha sheekooyin la iska madadaashado oo kuwa karkaca shaaqa la dhiban iyo dareenada guuduna hamuunyada lagaga biyo suugaantu waa codka ruuxda waa muraayada nafta waa iftiinka dareenka aan la arki karin marka qalbigu culays dareemo suugaantu way hadashiistaa marka run la raadinayo suugaantu way iftiimisaa xaqiiqada bentana way dadaa marka qurux la doonayo suugaantu way soo bandhigtaa iyada oo dhuuxa ka ifinaysa marka naftu muusigu ooman tahay suugaantu way la xamiisaa muuqaalkan waxa aynu ku sahamin doonaa 4 baahiyood oo ah qofka bani'aadamka ay suugaantu ka kaafiso qof kasta oo nool waxa uu wataa nolol muuqata iyo nolol qarsoon nolosha muuqata aynu maalin kasta aragno wadna socodka shaqada waxbarashada hadalka iyo la falgalka dadka kale laakiin nolosha qarsoon waa tan qalbiga ku jirta oo meesha ay ku nool yihiin dareenada fikradaha riyooyinka iyo su'aalaha aan jawaabta lahayn ee qof kasta eeb abuuray ka guuxaya maankiisa sida uu buugiisa alqarbaal ku xusay maalmaalkii reer Lubnaan ee Miiqaa'il Nucayma suugaantu waxa ay dabashaa 4 baahiyood oo aadamuhu leeyahay kuwaas oo aynu ku soo qaadani doono muuqaalkan aan haatan dhageysanayso la joog saaxiib ilaa dhamaadka si aad u ogaato 4tan dareen ay suugaantu ka kaafiso maalin kasta qorax kastoo bari ka soo qaadana ay si aadan toos ah iyo si aan toos ahaynba ay kula falgasho baahida aynu qabno sheegista waxa ka kooxaya uurkeena sida rajada iyo quusta guusha iyo jabka iimaanka iyo shakiga jacaylka iyo nacaybka damqashada iyo ducaansiga murugada iyo farxadda cabsida iyo xasiloonida qalbiga bani'aadamku ma aamuso xitaa marka afku aamuso qalbigu wuu hadlaa mararka qaar waxaad dareemaysaa jacayl aanad eray u helin mararka qaarna waxaad qaadaysaa murugo aad qof kale u sheegi kari weyday mararka qaar waxaad leedahay rajo marna shaki dareenadaas haddii la cadadiyo waxa ay noqdaan culays nafsi ah laakiin marka ay helaan eray gabay sheeko hawraar ama erayo kale oo maasa ah ama sidoo kale qisooyin waxa ay noqdaan iftiin taasi waa shaqada koobaad ee suugaanta inay nasiiso luuqadaan kula hadalina qalbigeenna 2 baahida aynu qabno dhabta waa xaqiiqada nafiyeenna iyo xaqiiqada caalamka inagu xiran suugaantu ma aha mala awaal maran suugaantu waa raadinta runta waa runta nafteenna cidda aynu nahay waxa aynu dareemayno waxa aynu ka cabsanayno waa runta bulshadeenna xaaladda aynu ku noolnahay cadaaladda iyo dulmiga rajooyinka iyo jababka nooca dowladnimo ee ka jira meeshaas markaad akhrido gabay run ah misena taabanaya waaqica waxaad dareemaysaa dareen aynaan cod ku soorayni karin sababtoo ah suugaantu waxa ay noqotaa muraayad aynu isku aragno kana dhex aragno waayaheenna 3 baahida aynu qabno quruxda wax kasta ruuxdeennu waxa ay leedahay harraad aan ku cokanaan karin qurux mooyaane wax kale suugaantu waxayna siisaa qurux aan la taaban karin balse si qoto dheer loo dareemi karo waana quruxdaas midda nafteenna dejisa inaga dhigta inaan u halowno suugaanta 4 baahida aynu qabno muusiga dabci ahaan ruuxdu waxa ay leedahay jamaysho ay u qabto codadka iyo laxamada oo aad u qoto dheer waxay isla ruuxdaa gariirka onkadka qulqulka biyaha iyo jabaqda caleemaha sidaasoo kale suugaantu waxay leedahay cod iyo miisaan erayadu ma aha macno keliya waa dhawaaq la dareemayo marka hadal ku yeesha laxan qalbigu la ruxmaa taasina waa sababta gabaygu hilo badan yahay heestuna u taabata qalbiga kuwa la dhibtoonaya karka mahadhada ay la gubtaanyoonaysa suugaantu intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeennan yar ee gaban aynu ku soo qaadanaynay 4 dareen ay naga kaafiso suugaantu idamka alle waxaynu si xidhiidha u soo gelin doonaa muuqaalo fara badan oo taxane ah oo aynu kaga hadlayno suugaanta khayr iyo barako ayaan idin rajaynayaa rabadaan mubarak